xaaskiisa oo 7 caruur u hayso ayuu sixray. Sixirkaasna way ku geeriyootay. 7 caruur ay dhashayna aad u yaryar yihiin. midka ugu yar bilooyin oo jira, midka ugu weyn 9 bilood oo 9 sano ayuu jiraa. sababta keentay inuu sixro iyo mar intaysa geeriyoonin ka hor maxay dhahday xaaskiisa waa qis aad u xanuun badan inoo la socdo asxaabe bilaaw ilaa ay dhamaad nolol jooga insha Allah adigoo mahadsan khayr Allah ku siiyo siina share garay fiidiyowga. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waadin salaame asxaabe soo dhawaada meel walba adduunka daafiisa ka wada joogtiin gacan furan ku soo dhawaada inad saafiya channelku waa channelkiina maanta waxaa inoo wadaa qiso aad u xanuun badan oo wiil Soomaaliyeed ku dhacday oo asiga ka sheekeynayo qisadan markii ugu horeyso waa idin soo dhaweyneynaa. marka xigta qisada ayaan guda galeynaa. wiilkan wuxuu qabay xaas 7 caruureen u haysay. caruurtiisana aad u yaryar yihiin. xaaskiisana aabaheeda ayaa dhaxal kaga dhintay, dhaxal oo fara badan ayada iyo walaalaheeda. marka asiga wuxuu damcay inuu naag kale guursado. ninka wuxuu damcay naag kale inuu guursado. xaaskiisa ayuu u imaaday wuxuu dhahay idageyso anigu waxaa rabaa inaan qof kale inaan guursado. marka sida uu aragtaa masiirtirnoo ku siinaa wax alaal waxa doontidna ku sameeyna. marka ayadan way diiday oo waxay dhahday aniga gabar yaran ahay xitaa 30 sano ma gaarin dhahday iska daa wax kaleenta xitaa 30 sano ma gaarin aniga meesha isdhahayo ninkaaga xaajigaaga caruurta kula korsanaa maadaama oo caruur far badan aan ilaahay nagu arsaaqay 7 caruur ma sha Allah ma yara ma dhashan ma ihi maanta ilmo badan waa inoo dhalay 7 caruur waay duqni ma ihiyo gabar yaran ahay oo 22 sano jir ah oo xitaa 30 sano aan wili gaarin. warka waxa kale oo naag aad ka doontidaaba meesha oolina dhahday anigoo ku taagan. marka daarabtid in naag kala guursatid aniga waa iska keefureysaa anigana nin kale inta guursanay dhahday. marka ninkii talaba la wareegtay uu baxay naagta kale intuu xiriirka lahaa oo xiriir jaceelka oo la lahaa ayuu wuxuu dhahay soo dhawo baayo waxa rabaa in aniga adiga ku guursado adigan guur baan ku balanay xaaskeyga caruur ba ii haysaa 7 caruur ah wayna diiday in naag kale la guursado. marka waan ku qarinaa khudba sira ku guursanaa. marka gabadha kale inta waxay dhahday ani ilaahay ima qarinin waayad ii qarinaysa ima qarinaysid waad i soo bandhigaysaa ana habeenkeyga iimaanaysa ayadan maalinteeda habeenkeeda u tagaysaa ana raal ku ahmidaas. marka asigan wuxuu yiri aniga ma doonayo yiri inaa habeen aad ku imaado maalin bisa ku imaana habeen walbo xaajiyadeeda oo caruurteeda aad u yaryar ayaan la joogaa uu yiri. marka marawiye dhahday hadaad rabin inaad i sheegtid anigan kuma doonayo. marka asigan wuxuu yiri okay hadii naagtaas aan furo dhahay oo caruurta hayso caruurta manoo karinaysaa caruurta manoo korinaysaa ileen ayada waxay dhahday hadaa naag kala guursanaysid caruurta ayada u geyso aniga nin kale inta guursana waa ifureysaa saasay dhahday. marka asigan wuxuu yiri caruurta manoo korinaysaa gabadha waxay dhahday aniga gabar yar ahaa oo wiil xitaa nolosha quruxdeeda macaankeeda ma arkin inaa guursatid ma isla markii ilmo maad igu saladeysaa oo 7 ah xitaa waa hal ilaw aan marka ninkii talaba ku wareertay oo xaaskiisana way diiday inuu xaaska la guursado. mid kale uu jeclaanay inuu qariyo way diiday ayadana. marka sidaas daraadeeda asigoon wuxuu sameeyay si xaaskiisa aysan caruurteeda ugu dhax bixin ee caruurteeda u korsato wax waliba uu dhahan hayba hay sida ay u dhahda dartiisa ayuu wuxuu tagay nin oo falfal ah oo wax sixiro oo waxyaabahaas uu sameeyay sheekh bay dhahan wax buu sixraa balaayaha aragtay Allahumma najina. marka ninkii uu tagay ninkii wuxuu dhahay wax sheekh waxa rabaa naagteeda inaa xaaska la guursado xaaska waxa jeclaa gabar kale inta aad u jeclahay mana ka maarmo oo ayadan way diidantay inaa khudba sir aan ku guursado xaaskeyga 7 caruur bay ii haysaa inay ka dhaxbaxdan aniga ma doonayo caruurtaas because caruurtu way deecmayaan hooyo la'aantooda. marka hooyadooda inay ku dhex jirtaa rabaa caruurteeda oo naag kale aan guursado xal isi oo wax ii sameeyo yiri oo aan naagtaas aan siiyo hayna wax buu sameeyay wuxuu dhahay law wax buu sameeyay wuxuu dhahay mid raashinka ugu dar oo midna waxaad ugu dartaa biyaha law geedo soo siiyay oo waraaqad ugu soo duuduubay. marka ninkii maqaayo aaday
xaaskiisa ayuu casho usoo gaday wiligiisa xaaskiisa raashin uma keenin haddee dhash xitaa haddee umush xitaa inay shaqaalale u karin jirta raashinka mooye asiga wiligiisa inuu baxo maqaayad tagu raashin uma soo gadin marka habeenkaaseeti waxbuu u keenay casho u keenay cashada markuu u keenay way yaabtay waxay dhahday ninkan maxaa ka qaldan cawadee dhahday oo daraad naa kala guursanaa oo ku yiri waa diiday oo maantani casho kuu keenay wiligiisana casho kuuma keenine maxaa qaldan okay aayadoo shakinos weena faraxday marna way shakisay marka qof marka wiligaada waxa aad sameeynin marka ugu horeysa aad wax u sameysid wuxuu isleeyahay muxuu ka sawinaya qofkan mugtahay marka wayaabta gabadhi raashinka wuxuu yiri ilmaha iska seexi kadib cun li'anno waxaan uu yaryahay ilmahan ma deeqaay way badan yihiin caruurtani iska seexi caruurta markaas kadib casheeyo yiri aniga isla cuneen dhahday mayo dhahaan waa soo casheeyay waa dharganahay adiga kaliya kuugu talgalay intaan hay way casheysay andan wuxuu yiri biyihii u soo qasay marka biyo u soo dar liimada oranjad iyo waxba u soo daray sokor iyo wax ninka soo qasqasay ayuu ku soo daray iyo raashinka ninkuu ku soo qasay wixii uu ku soo daray banaanka intoo jiriyo ku soo qasay marka waxay dhahday aan biyo macawaay caana cawaa raashinkii cuntay kadib caana cabtay way seexatay markay loo saac camal ay jiiftay way soo kacday xiliyada oo saqda dhax camal ay soo kacday ayadoo caloosh fuursan oo soo fuuri rabto laakiin oo xanuunayso oo ayada dhan dibirsan oo way yaabtay maxaa qaldan cabada cashada oo ku keenay xaajiga aadoon u macaan badneeday maxaa ka qaldan marka asigay soo kicis waxay dhahday waa xanuunsanahay oo cashada maanta maxaa ka qaldanaa oo wiligee sidaa ma noqonin cashada cabada iyo ka horeys raashin aad ii keentay cabadan caloosheedu isbedeshay anma ii shakinaysaa oo yiri ma yidhaahdo kaan shakinay bar sacuud bileesay oo yiri wax ma jiray marka way cuud bileesatay quraan buu saaray kistoo ma aragtay waxay nafisaysa camal ee dareentay kadibna biyo u keenay biyihii markay cabtay biyihii way cawaasi wax yar markay ka batay mar labaad way ka ban waasi iska dhigtay andan wuxuu seexo dhahay cabada haddii sidan si ahaatid beri subaxdii isbitaal ku geynahay habeenkii weeba seexan waas indhihi way issaar waas asoo iska seexda laakiin ayada waaga ugu bari ayadoo soo jeedo subaxdii caloosha soo fuurtay ayuu isbitaal u la cararay asigoo naxsan oo xalay inuu aswax si uu ogyahay moogtahay sixirka xumaa wuu naxsan yahay marka wax baab sameysay uu isleeyahay ilaahu ibadbaadi wuu baxay isbitaalka uu geeyay marka koowaad waxa la anaga wax ma qaban karna naagtaan okay wuu ka wada isbitaalka leento geeyay waxay dhahday isbitaalka maxaa lagu dhahay maxaa ii bixinaysa dhaqaatiir fiican ma joogan isbitaalka leento ku geeyna dhakhtar fiican joogo dhahay niid ayadu dhisay marka dhakhtarku wuxuu dhahay uma basheegin wuu qaaday isbitaalka loo geeyay faleebooyina lagu suray cirbidooyina la duray wax uu ka tari waayay caloosh aad u sii fuuroosa markaas dhahday hebel ilaahay ka cabso maxaa isiisay maxaa igu dartay raashinka xalay markaas asigoo ooynayo indhihiisa ilmo ka daadanayo ayuu yiri abaayo iska kee cafi hadaa lacala dhimatid iska kee cafi hadaa noo shahayna inta anaa ku sheegay laakiin hadaa dhimatid la iska kee cafi ku cafinaya dhahday waxaad isiisay ii sheeg caruurteedii oo yar oo 7 oo midka ugu yaro bilooyin jiro naas niwgooyo oo xitaa caana ana caweynina maanta ina iga dhexbixisid ma rabtaa ay dhahdo ona kala guursatid darteed wuu ilameeyay baay cafiyo yiri wuu diiday way diiday inay cafiso madaxay lushay kadib markaas hadal ugu dambeysay gabadhi hadal dhan wuu ka soo bixi waayay marka hadal wuu ka soo bixi waayay ayadan aad caloosh u sii fuurtay way geeriyootay subxaanallah asigoo naxsan ayuu ninka u tagay intaysa geeriyoonin ka hor ninka sixirooga u tagay wuxuu yiri maxaa xalay isiisay adig imtixaan maxaa xalay isiisay an xaaskeyga wax walba oo ani aan rabo hay inay dhahda la rabiyo yiri laakiin inay iga geeriyooto ma rabine maxaa siisay oo marka asigan wuxuu yiri aniga xaaskaaga waxa u sameeyo yiri raashinkii ugu dar ku dhahay ikii biyaha isku dheeli tiran yihiin adigu maxaa iskugu siin waayay hal mar maxaa iskugu siin waayay hadii hal mar iskugu siin lahayd wax dhib ma ka imaan lahayn ayada biyihii diidiyo yiri caana cawaay dhahda anna hada ku khasbina iga shakisa aan ka cabsaday yiri ma fahmino saas daraadeeda u dhaafay biyihii
biyaha daawo kulaha kan kaleentan asiga waxa ah dhibka keenay raashinkan lagu daraya dhib badan kan biyaha asi sifeen lahaa kaasa fiicnaa lahayd inaa ku dartido yiri marka asiga ma ku yaqaanahay ninkan subxaanaka yaa cadiim qisdan aad u xanuun badan tahay wallaahi gabartada caruur dhashay oo inuu xaaska la guursado darteedan u sixray and then gabadhi way dhimatay way geeriyootay gabadhi kale intuu guursaday markuu guursaday shaqaalo u keenay caruurtii soo dhaxgeliyay markuu soo dhaxgeliyay kadib caruurtii shaqaaladii ayadoo iskeen waayeen naagtan shaqaaladii iska burisay caruurtii markii 2 maalin ay hays maalin saddexaad waxay dhahday wiilka yaroo 9 sano jira ay dhahday wariya guriga alaaliya joog dugsi ka joog aniga waa soo noqonaya hal mar si u baxday suuxdii way soo noqon waysay moobilku guriga yaalay aabahoo soo wacay wuxuu yiri hay fiicantiin uu ooyay hooyadeen waxna u fiicneed malahan uu yiri aabahooyo hooyeenaga dhimatay naagtan hooyo ma noo noqoto yiri hooyadiin ka waramo dhahtan hooyo hanoo dhihin hooyo ma noo noqotay saakisay noogu tagtay ilaahay hadday maqanta caruurtu way saxaroodeen baahin way haysa aan xitaa baahi ay hayso midku ugu yar bilooyinka jira anay iiga tagtay yiri asigoo ooynay cunug yar oo 9 sano jiro wiilkaas curud u ahaa gabadha oo geeriyootay kadib wuu soo orday ninka shaqadiisa ka soo tagay caruurtiisa u imaaday raashin oo soo gaday wuu siiyay wuu u qabeeyay xaarkii oo ka dhaqay saxaradii oo ka dhaqay marka madaxo gacan saartay hooyo wuxuu dhahay hooyada waxa ay haysay maalintaas oo arkay aleelehe oo yiri walaa hooyadiin xaq baa ka galay cimrigeega inta ka dhiman wax ma cafinaa nafsadeedii marka gabadhi markii uu wacay wuxuu intay jirtaa guriga joogay dhahday oo guriga aniga ba joogo maxaa been uu sheegay oo yiri caruurteeda saaksa uu tagtay ilaa ay hadda ka maqan tahay maxaa been ii sheegay ani saaksa oo imaad guriga way isku naxday naagta cusub oo la guursaday ilaan waxa aad naagtaada ka goosi adigana waa laga gooynaa wax xumaatadii sameeysid adigana waa lagu sameeynaa midaasid ogsoono waa imaaday gabadh wuxuu yiri waa ku furi because hooy caruurteeda hooy ma buu noqon kartid shaqaaladii aan u keenin waad ka bursay ayagina kaligooda iskugu dhax tagtay oo caruurta raashin ma siinin saayeen wax oo daneen malahan ayaga dhan sidaan u bahdilmeen oo yiri hooyadad markay ka tagtay sida ilgo ayna oo yiri subxaanallah caruurtani qabri ma laga soo bixiyaa listaha oo qofkii arko hooyo waa wallaahi hooyo wax oo lagu tilmaamo malahan adduunka hooyo waa jannatu dunya jannada adduunyada waa hooyada wallaahi aniga caloosh u horta qasna markii leega sheekeynayay ilaa cafis weydiiso ayaan leeyahay ilaahay u toobadkeen ninkaas haduu banool yahay oo caafimaad qabo imaqlaayo xaaskaaga adiga sababtaada ku geeriyootay ilaahay cafis weydiiso kale ayada kuma cafinine aakhirad ku xisaabtami doontiin subxaanallah wallaahi waa wax laga calool xumaado ilmihi iyo asiga meesha ay ku dambeeyaan wallaahi leema sheegin qisas ilaa ay halahaas halay sheeg ilmihi asigoo la daala dhacayo oo marba qof u keenayo shaqaalo oo caruurtiisii oo la daala dhacayo korismadeeda ilmo korismadiisa ma sahlan dhaloogeeda sahlan bu dhalis sida loo dhalay iyo korismada sida loo korinayo sida loo dhalayo sahlan korismada aad u dhib badan tahay qofku caruur haayo baa dareemi karo inta awlaad la'aan haysan Allah siiyo awlaad fiidiyogan waxaan idinka codsanayaa inaad si share gareysaan qiso aad u xanuun badan waaye hooyo 7 caruur laga dhax bixiyay wax sahlan ma ahan si share gareeya una duceeyo hooyada seeti في أمان الله انتن فيديو كالك جارن حايدن كالك تهادا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.